maxay tahay waxaas aan kuu soo jeedinayo waa 5 shay haddii aad iska ilaaliso Allah subhanahu wa ta'ala arsaaqda waa ku ziyaadina Allah subhanahu wa ta'ala waa ku barakeynaya noloshaada liibaan iyo baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo ayaad ku noolaanaysaa رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا شيخ ريمي channel waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar eebaweyne waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhirad janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena آمين آمين آمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله ما أنتو حندين سوجيدين يا فيديو آد مهم maxay tahay waxaas aan kuu soo jeedinayo waa 5 shay haddii aad iska ilaaliso Allah subhanahu wa ta'ala arsaaqda waa ku ziyaadina Allah subhanahu wa ta'ala waa ku barakeynaya Allah subhanahu wa ta'ala noloshaada liibaan iyo baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo ayaad ku noolaanaysaa waa 5 shay oo badanaaba Soomaalidu badanaaba ay samayso oo u keenayaan arsaaq la'aan baraka la'aan iyo asbaxnimo iyo qumayo u keenaysa weeyaan 5 shay si aad isaga ilaaliso darteeda ayaan videogan kugu soo gudbinayaa fadlan haddii aad ka hesho amaba ay ku soo gaaraan like sidii roobka inooga yeel subscribe-tana inoo saar gambeelkana furo si ay ku soo gaaraan waxyaabaha markasta aan soo gelino insha Allah biidnillaahi alkariim oo adna aad u noqoto addaal ala khayri kafaa'ili si aad u hesho ajar baad ka helaysaa haddii aad like aad saarto misna aad share garayso insha Allah biidnillaahi alkariim yaan warka idin kugu daalinay videogii ayaan bilaabayaa insha Allah biidnillaahi alkariim qodobka koowaad ee loo baahan yahay qofka inuu iska ilaaliyo waa aroorta markii waagu uu bariyo qofka ku asbaxayo heesaha qofkaasi arsaaqdiisna way yaraanaysaa barakadana waa laga qaadayaa maalinkaasna heesahaas uu ku bilowday dartooda qumayo ayay u noqonaysaa amaba sigal haddaan u dhaho asbax min as-subax ayay u noqonaysaa waayo waxa uu ku bilowday munkar ayuu ku bilowday ilaahay caradiisa ayuu ku bilowday waa xilliga arsaaqda la qaybinayay waa xilliga Allah subhanahu wa ta'ala qof kasta wixii uu haystay uu u barakeynayay isaga wuxuu ku furfurtay xaaraantaas ajligeeda ayaa ma garanaysaa maalinkaasi ay ugu noqonaysaa asbax min as-subax arsaaqdiisana loo yareynaya barakadana looga qaadaya waxaa laga yaabaa inaad idhaahdo heesaha subaxdii lay may xaaraan yihiin xilliyada kalma banaan yihiin alla yaabaa inaad dhahdid barqadii lay dhagaysataa galabkii lay dhagaysataa habeenkii lay dhagaysataa heesaha waa xaaraan meel kasto ay ka yimaadaan waxaa laga yaabaa inaad idhaahdo heesaha dadkii heesayay يعني أرزاق ذو وي واسعة نقطة وي بلارتي مليونير واي أدينا وأرزاق ذي الوجوه رينا يا بركة لقى قاضي يا تلذ هي يجنا مليونير واي تاجرين واي سذيك وعدد اللذ هي إذا جيسو ميقا فنانين أيام قرنا سايك كسر نقدين وهدرتان أسبوع يدان بشان جذي هذا فنان عربيت وقالي شاب لين يراه مليونيرنا أيام قرنا سايك توبت كيني أدهم
naabulsi qof walba siduu u yaqaano meeqa fanaaniin oo Soomaaliyeed oo la yaqaano oo codkooda markii la maqlo loo malayn jiray in konkalent ay ku nool yihiin sida uu qurux badan yahay ayaa ka toobad keenay waxaan ka xusi karaa Zulfa oo kale ii sheeg adiga mar hore oo haddaba ii sheeg adiga mu'adin uu noqday la dhahayay waxaa kaloo ka mid ah Awees Khamiis oo kale waxaa kaloo ka mid ah qofkii codkii halaasiga lahaa ee qoomaal la dhihi jiray waxaa kaloo ka mid ah raabka aabihiisa fanaankii la dhihi jiray alfanaan alxabiib oo markii dambe khuruuj baxay dadkaasi waad aragteen dad shaaba ah cod qurux badan cod wanaagsan ayay ahaayeen wuxuu yahay way ogaadeen wayna ka soo noqdeen axibbatii fillah kuwa hadeertaan ku jirana saas oo kale kii hanuun u qoran waa ka soo noqonaya imaa kan kale ma aho cadaabka ayuu hore ugu sii ogaanaya waxaa kaloo ogaanaysa suubanaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha idaa gadiba cabdan razaqahu calayhi bilxaraam وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه ولولا جيدو الله سبحانه وتعالى أدون كيسا هدي أو عروضه وحوكو إرزاقا حاران هدي أو عرضي زائد يكون نقطنا وأبركيا مركا فنان الله سبحانه وتعالى أو عريسا أنيقا تصالح إيقصو قادنين بس واحد كلوات أوغاتا إن أد هيساه آذان كفر فرانين واغادا qofka heesaha xalaal dadka qaar ayaaba mooda inay heesaha xalaal ay yihiin iyaga oo dhahayaan yaani culimada qaar ayaa ma garanaysaa banaysay culimada la yaqaano rasmiga ah aqeedadoodu ay toosan tahay ma banaynin ee xaraan ayay ka dhigeen qofka heesaha dhageysto ilaahan kugu dhaariye heesa ayu nooc hadii ay kugu jiraan hindi carabi ethiopian somali iyo magaranaysa american bal kabar quraan yaa kugu jiro sheekh Abdulrashiid Shaacli Suufi ma kugu jira oo magaranaysa sheekh Shuraym ma kugu jiraan waa maya hadii ay kugu jiraan se ma dhageysatid meel misla galayaan ana ku dhahay quraanku waa nuur ilaahay kanna waa magaranaysa mugdi shaydaan waaye ii sheeg adiga meel misla galay nuur alle iyo xaraan meel misla galayaan sidaas daraadeeda qofkii heesaha ku furfuranayo dhibaato weyn ayaad ku jirtaa ilaahay ka baq oo ku furfurayna heesahaga qodobka labaad aan u imaano dadka cidiyahooda markay gurayaan iyo timahooda markay shanleeyaan wax ka soo hara qaastan dumarka ayaa u badan banaanka geeya iska ilaaliya arinkaasi iyay idinku dhicin maxaa yeelay waxay keentaa baraka la'aan arzaaq yari iyo magaranaysa qumayana way keentaa maxaa yeelay cidiyaha hatta dhibaato kale ay bileeyihiinbo cidiyahaaga hadii aad gurto banaanka aad magaranaysaa geyso tintii adiga aad shanleysatay wixii ka soo haray banaanka aad geyso cadow badan ayaa jiro hadii tintaada ay helaan amaba cidiyadaada ay helaan way kugu sixri karaan soo ma ogid waa lagugu sixri karaa marka sidaas daraadeeda waxaa fiican inaad god u qodo ama magaranaysaa guriga aysan ka bixin meel aad ku asturto ayaa wanaagsan qofka cidiyihiisa iyo timihiisa meel ku hubsada rag iyo dumar qofka doontid ahaw ogow arzaaq weyn ayaa ilaahay ku siinayo waasic waana ku barakaynaya gurigaas aad ayuu u wanaagsanaanaya insha Allah bidin ilaahi alkariim qodobka saddexaadna waxa weeyaan waa qofka sawirada qaaqaawan guryahooda u yaalo albumo intay gashteen amaba ku dhegdhegan darbiyada maxaa yeelay sawir qaawan guri ku jiro malaa'ig ma soo gasho guri malaa'igta ay ka fog tahayna barakada way ka fog tahay arzaaqdana way ka fog tahay maxaa yeelay guriga malaa'igta soo gasho ilaahay bay u baridaa gurigaas inuu istiqraar iyo xaslooni iyo nabadgelyo uu helo ay ilaahay u baridaa malaa'igtiiba ma ku soo galaysay yaa ku bariyaayo iska ilaaliya hadiibo sawir qaaqaawan meelahaas oo yaani ay ku jiraan halaga dheereeyo ama halaga fogeeyo guriga laga doonayo sheeg adig barakada iyo khayrka iyo arsaaqda laga doonayo weeyaan imma guriga qumayada inay soo asbaxda la rabo ama qumayo joogta la rabo shayaadiinta joogan la rabo sheeg adiga arsaaqda ka dheeraato ama hadii arsaaq la helana ciriiri iyo magaranaysaa deen ku gudlay ay tahay hadii la rabo waad samaysan kartaa qodobka afraad u imaam qodobka afraad waxa weeyaan habeenkii aad ku seexato janaabo
janaabada habeenkii ha ku seexanin xitaa haddii qubays aad ka gaari weysid weysayso oo iska fududay sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sheegay oo kale weligaaga janaabo aad ku seexan haddii janaabo aad ku seexato arsaaq yari iyo baraka dari iyo qumayanimo ayay leedahay qodobka shanaad ee ugu dambeeyo aan ku soo koobaya waxa weeyaan waa guriga qashinka lagu kaydiyo guriga ama guryaha qashinka lagu kaydiyo haddii gurigaaga uu ka mid yahay goobtaasi qashinka lagu kaydiyo waa goobta shayaadiinta iyo jinniyaalka ay isugu yimaadaan guriga shayaadiin iyo jinniyaal ay ku badan yihiin barakada way ka dheer tahay arsaaqdana ma soo gasho wamaca daalika qumayada ayaana ku badan marka soomaalida badanaabo si fiican u fiiriya guryaha qashinka iyo wasaqda badani guryahooda lagama tukado layskuma ixtiraamo gabdhaha laguma ixtiraamo ragga laguma ixtiraamo awlaadooda qur'aanka ma bartaan masaajidda ma aadaan bal fiiri maxaa yeelay shayaadiin iyo jin ayaa iska qabsaday guryaha qashinka buuxa weeyaan si fiican ha loo fiiriyo ima guriga nadaafada badan waa guri oo iimaankiisu uu degan yahay rasuulka ayaa inoo sheegaybo النظافة هي شطر من الإيمان أما نصف الدين انتبه ولا يرهلا لكن جوري نظافة تصالحن ويدع كرتا مثلا جوري جاga هدي مقرنا يساي ويل قشن لو شوي هل ميل أي تهاي قشن كاس لو ديارينايو مركو بوحسمنا قف لو ديبايو ولا قاضايو جاري لي هلا صاري أما قف كله هلو ديبو تاسوا إسك عادي هل كاس ميل أو قشن لو أورنايو نظافة أي بكم التهايبو لكن جوريها قارو حاجرو meel kasto waa la saga daadin raashinkii la cunay ama bala dhameystay ayaa meel iska yaalo qashin ayaa yaani warqadihii iyo xaanshooyinkii waxa soo dhan waa nadaafad daro dadka qaar ayaa xafaayadihii awlaad guryahooda dhigta meelna lagu marido meelahaas iska yaalayaan hadii roob uu yimaado wixii oo dhan waa isla wada dhiiqoowayaan gurigaas barakada inay ku sudugto iska badhaafay xitaa iimaanka ayaa laga siibayaabo maxaa yeelay iimaanka barkiisa ba ka maqanbo oo ah nadaafadii ahibati fillah shantaas aan idin soo sheegay hadaan dulmaro koo waxa weeyaan ii sheeg adiga in hees lagu bilowdo labo in magaranaysaay cidiyaha iyo timaha magaranaysaay banaanka loo bixiyo saddex waxa weeyaan in janaabo lagu seexdo afar waxa weeyaan in sawirada qaaqaaban guryaha la dejiyo shan oo ugu dambeyn ah guryaha qashinka lagu kaydiyo intaas ayaan soo gabagabeynaa walaalayaal ilaahay hanagu dhowro ilaahayna hanaga aqbalo waxaan heleynaa fi shaydaan bay ka ahaadeen waxaan ugu talagalay maaha ilaahay hanaga dhaafo waxaan hagaajiyeen farmanlaahi xaqiisay ka ahaadeen allah naga ajar siiyo anaga iyo adinkabo waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh